laba sarkaal oo boolis ah ayaa loo qabtay iyaga oo lagu eedeynaya inay shalay suuqa xoolaha ee magaalada Gaarisa ku dileen laba qof. Booliska ayaa saaka qoraal ay soo dhigeen boggooda Twitter-ka waxa ay ku sheegeen in taliyaha booliska Helen Mutinyi uu amray agaasimaha arrimaha gudaha booliska Maxamed Aamin inuu sida ugu dhaqsiyaha badan bilaabo baaritaan. Sidoo kale booliska ayaa amray waaxda DCA-da inay xaqiijiyaan rasaas la adeegsaday maamulka madaxa bannaan ee dusha kala socda howlaha booliska. IPO-da ayaa daafuray baaritaan dilka laba qof. War-saxaafadeed ay shalay soo saareen IPO-da ayaa ku xusan in saraakiil ka tirsan maamulka ay gaareen magaalada Gaarisa. Agaasimaha arrimaha gudaha booliska Maxamed Aamin inuu sida ugu dhaqsiyaha badan bilaabo baaritaan. Sidoo kale booliska ayaa amray waaxda DCA-da inay xaqiijiyaan rasaas la adeegsaday maamulka madaxa bannaan ee dusha kala socda howlaha booliska. IPO-da ayaa daafuray baaritaan dilka laba qof. War-saxaafadeed ay shalay soo saareen IPO-da ayaa ku xusan in saraakiil ka tirsan maamulka ay gaareen magaalada Gaarisa, waxayna sheegeen in marka ay dhammaato baaritaanka ay soo saari doonaan ay ka mid tahay in dacwad lagu soo oogo saraakiilka dilka geystay haddii lagu caddeeyo dembiga. IPO-da ayaa ugu yeertay shacabka inay xasillooni muujiyaan oo ay maamulka u soo gudbiyaan dembi walba. Wixii warar iyo akhbaaraad ah waad nagala socon doontiin insha Allah.